sanadkii hore ayay ahayd markii degmada ay oo leh xeeb aad u qurux badan sida Tangaracad oo kale lagaga dhawaaqay shirkad qaabilsanaan doonta dalxiiska oo madaxu yahay Samaanfare gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Maxamed Jaamac Yuusuf Tigay wuxuuna sheegay maalinkaasi ahmiyadda ay leedahay shirkaddan dalxiiska iyo weliba qaranimada dalkeenu leeyahay waxaan anigu wax yar xusayaa wixii ugu kalifay inaan aasaaso shirkaddan dalxiiska iyo deegaanka ee Magool waxaan xaqiiqsaday in dhulkeennu uu yahay dhul hodana dadkeennuna uu yahay dad sharaf leh oo goba laakiin in badan aysan ogeyn dalkeennu inuu dalxiiska ku wanaagsan yahay inuu raaxada ku wanaagsan yahay inuu nolosha ku wanaagsan yahay inuu xoolo dhaqashada ku wanaagsan yahay inuu beeraha ku wanaagsan yahay waxa ay muuqatay dhalinyaro inay kacday fara badan oo aan dalkooda aqoon u lahayn ama dad badan oo qurbaha ku raagay oo dalkooda aan aqoon u lahayn dalkeenna markuu waa ammaan waxaan ugu talagalay shirkaddan inaan xaqiijinno oo caddayno dalkeennu inuu yahay dal amni ah meel walba oo aynu dalkeenna ka midana qof walba Soomaaliya uu ku dalxiisi karo uu ku noolaan karo uu ku nasan karo ilaahay wuxuu ina siiyey xeebtan bilicda san ee hadda ina ku hareeraysan dhulkaas ilaahay ina siiyey in lagu nasan karo in lagu dalxiisi karo in lagu noolaan karo marka ugu horeysa waa dalbarasho dalkeenna inaynu baranno intaynu dal shisheeye aadi lahayn intaynu dal shisheeye jeclaan lahayn intaynu dal shisheeye lacagteena ku bixin lahayn dalkan dalaan ahayn malihin wallaahi mana yeelanayno dhulkeenna inaynu baranno ayl baro waxa weeyaan badarbeelo baro baargaal baro xaafuun baro laasqoray baro halkaa waxa weey laalow iyo caddo taleex berbera inta dhulka Soomaalida oo dhan baro halkaa baro ilaa iyo Hobyo iyo Warsheekh iyo waxa weeyaan Banaadir ilaa iyo Baraawe ilaa iyo marka ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo waxa weeyaan bariga dhulkeenna oo dhan daafaha Soomaaliya waxa weeyaan hadba dhinac waxa weeyaan ugu mushaax Soomaaliya naga iska leh dal kalena yeelan mayno Soomaaliyana dalka Soomaaliyana dad kale yeelan mayno tan iyo waayadan dambe waxa deegaanada Puntland ku soo badanaya fahamka iyo xiisaha loo qabo dabaasha badeena adigoo arkaya dhalinyaro xiisaha ay u qabaan awgeed dabaal u aadiya dhowr boqol oo kiiloomitir sida Garowe iyo Ayl ama Gaalkacyo Garaacad si ay u helaan bad leh qurux isla mar ahaantaana ay ku dabaalan karayaan xeebta magaalada Boosaaso ayaa iyana ah meelaha ugu wanaagsan ee dadka badankiisu ay u dabaaltagaan maalmaha ay nasashada leeyihiin isla mar ahaantaana dadku ku badan yahay sida xeebta Liide ee magaalada Muqdisho oo aad maalin walba arkayso kuma ku dadweynaha ku dabaalanaya inkasta oo maalinkii aanu halka tagna baddo ahayd mid aad u degan haddana dadka dhalinyarada ah ee u soo dabaasha tagaa waxay ku tilmaameen xeebtani mid naftooda aad u raali gelisay aan lahayn wax cabsi iyo walwala oo soo gaara waqtiyada ay dabaasha ku jiraan goobaha lagu dabaasho Soomaaliya dhamaantood ayaa meelaha ciidda leh oo ku yar yahay dhagaxa baddu oo aanu jeclayn dadku si aanu dhaawac ugu geysan agahooda ka hor inta aanay bilaabin dabaasha buuxda xeebta Boosaaso waxa iyana nin ganacsatada ka bilaabay inuu doon leh shiraac dadka qofkii doonaya lagu geynayo badweynta lagana soo celinayo kadib markii loo xiro jaakada badbaadada ee loogu talagalay inaan qofku badda laqin isla mar ahaantaana qofku iska bixiyo khidmad yar oo ah shidaalka doontu isticmaalayso taasoo noqonaysa arrin dhiirigelinteeda leh marka laga soo tago dhalinyarada carruurta iyo haweenka ee xeebaha ku dabaasha misna waxaa jira in mas'uuliyiinta dawladda iyo qaar ka mid ah wariyaasha qaybahooda kala duwan ay iyana u dabaaltagaan xeebaha xilliyada ay firaaqada leeyihiin
oo isugu jira waayeel dhallinyaro iyo carruur ayaa maalin walba u dabaltaga xeebaha hodanka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntland waxaana maalinta ka dambaysa soo badanaya xiisaha loo qabo fahmidda dalxiiska dabaasha iyo weliba ka manfaacadsiga kheyraadka badda